waxaa shalay oo khamiis ah degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ka furmay shir dib u heshiisiin ah ka oo u dhaxeeya beelihii wada dagaalamay ee shanta caleemo iyo Galjecel. Shirkan oo looga arrinsanayay xalinta khilaafaadka beelaha iyo sidii xal waara looga gaari lahaa falalkii faasha xumaa ee ka dhacay iyo dagaalada qabaa'ilada ku saabsan ee ka dhexdhaca beelaha taasi oo keenta gacan ka hadal u dhiig badan ku daato. Shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka degmada oo uu horkacayo kusimaha gudoomiyaha degmada Wallaweyn iyo saraakiisha guutada toddobaad iyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Daafurka shirkan waxaa goobjoog ah wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kusimaha gudoomiyaha degmada Wallaweyn, taliyaha guutada toddobaad iyo taliyaha ururada iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada Wallaweyn. Shirkan oo ahaa mid hordhaca ayaa socday in ka badan 8 saacadood waxaana lagu ballansan yahay in maalinka Sabtida dib la isugu yimaado. Hase ahaatee labada dhinac ayaa gaaray heshiis hordhaca waxayna labada dhinac qaateen nabad buuxda. waxaana ugu horeyn shirkaasi furay kusimaha gudoomiyaha degmada Wallaweyn Mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto. odayaasheena dhaqanka ee qaaliga ah ee degmada Wallaweyn oo aan u maleynayo maanta inaysan cidna maqanayn Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka waxay og yihiin inaan maanta uu bilaawanayo shirkii dib u heshiisiinta ee degmada Wallaweyn. waxa laga rajaynayo waxay tahay in wanaag iyo nabad iyo horumar meesha ay ka imaadaan. marka waxa idin sheegaynaa waxa meesha dadka inta leeg la isugu keenay waxay tahay in la helo nabad. muhiimadda ugu weyn adduunka waxa ugu weyn nabad waay. nabada ugu weyn nabada inta meesha la isugu yimid. marka waxaan rabnaa qof kasto hadlaaya inuu ku xisaabtamo alla ka cabsi in maanta uu adduunyo korkeeda joogo berrina qiyaamo ay tahay qabrigana wax qaraabo inuusan lahayn. shirki saacada laga bilaabo waa furan yahay. naftayda iyo naftiina waxaan ku dardaarinaa inaad ku dadaashaan nabadda mar koowaad mar labaad mar saddexaad heer Wallaweyn waxa idin ka rabaa inaad u laxdaan dadkiina iyo dalkiina. sidaa daraadeed warka inaad ku dheeraado ma rabo. waxaan ku sii wareejin doonaa taliyaheena guutada toddobaad qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxaan u maleynayaa 18 cisho maraynaa markii ka dhacday degmada Wallaweyn kadib qalalaasihii. waxaan rabnaa inaan dhowr arrimood iskaga dardaarno ah inaan laga ogoleen degmada Wallaweyn qof maleeshiyada qora ku dhaxaysto. dadka dhalinyarada in runta loo sheego qofka lagu qabto ayadoo qora haysato maleeshiyad ah tilaabo laga qaadi doonaa. wixii hadda ka dambeeyo waxaan u maleynayaa degmada Wallaweyn inaan qof looga heebeysan doonin amniga iyo shaqada socoto. waxaan idin ka rabaa marka dhammaantiin odayaasha maadaama amaanta isku timaadeen oo shaqo culus iyo howlo badan idin yaalaan waxaan ilaahay ka rajeynayaa insha Allah taala degmada Wallaweyn inay noqoto sidii ay ahayd bariisamaadkii. qof damo qofku dhex dulmiso nin daniista ah ama siyaasi ama qof gooniyeen qof bariig loo qaban doono maanta kadib tilaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono qof allaale qofkii loo arko inay caqabad ku tahay in maxal dhahaa dib u heshiisiinta iyo shaqada ka socota amniga aad iyo aad u mahadsantiin. sidoo kale waxaa shirkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cumar Axmed Aadan Saandheere wuxuuna ugu horeyn salaan ka gaarsiiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuuna sheegay in shirka labada dhinac uu furan yahay isla markaana nabadda ay ka taliyaan. shirkan madaxweynaha federaalka waa og yahay ra'iisul wasaaraha waa la socdaa madaxweynaha Koonfur Galbeed waa la socdaa. waxa la ka sugayeen waxay tahay in la helo nabad deegaanka kan aan deganahay oo daafeed leeyahay. waxaan filaynay oo aan rabnay inay nagu soo zaa'ido wasaaradda arrimaha gudaha si kastaan yeelnay diyaarad kastaan raadinay wax soo qaadan la waay. laakiin waxaan rajaynaynaa muddo inay nagu soo zaa'idaan oo noo imaan xilligii beeraha soo dhow dadkii inay shaqaystaan rabaan haddii nabad la helin intaasoo dhan ma shaqaynayso. marka shirkii waa furan yahay. waxaan rabaa in ay soo gudbiyo marka salaan ay ka wado madaxweynaha Koonfur Galbeed. madaxweynaha waxaan rajaynayaa shirka inuu imaado oo xiro. marka shirka gabagabadiisa dad badan wafdi badan ka soo qayb galay. magaalada Wallaweyn waxay xudun u tahay Koonfur Galbeed. dhibka ka dhaca wuxuu saameynayaa Koonfur Galbeed ilaa Soomaaliya. marka nabadaan ka rabnaa odayaasha sharafta leh dad meel dheer ka yimid waa maasantiin. dad maanta shaqo laha waa maasantiin. shirkii waa furan yahay. shirkii nabadda beelaha ku dagaalamay degmada Wallaweyn waa noo furan yahay. sidoo kale odayaasha labada dhinac oo iyagana dhankooda ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay nabadda ka go'aantay isla markaana soo dhaweynayaan shirkana uu noqon doono mid ka duwan kuwii hore. nabad diyaaran dad nabad jeclaayna dad wanaag jeclaayna kastay nabad midiidaano umad badan duurka nool kastay walaa degmadun ku dhiyaan sida leen sheego shaydaan ka shaqo leh kullay amnigun sida leen sugun ciidamada ka maadsan yihiin kastay guulun iyo dhaliyeen
ilaahay sheeku qalati guuluna ciidamada dhaliyeen may diyaaran ina maslaxada gee iyo hamiin inaan soo jeedin haddii soon oo ku dhalado soddon yay haddii soo jeedaan le haddii masaamad le unu fidhin horta markaan ku horeyda nabadda qaadan ona shacalay madeen nabadda qaadan tan kale markii lagu hadalo dadka dhibaataysanyo ninka hadda geega duurka ka nool oo reershay ku maqayo in uu soo noqdo tan kale dukaamada oo geega oo hirinyin oo suuq qof kasta oo dukaanku hirin in dukaanshiisa hornimo ah ka furado baabuurta arada iyo dhagaxa qaadaaso in si hornimo inay ka baxaan iyo gaariyaalka iyo ummadii duurkaas ka noolaaytay in hornimo ka baxaan hornimo iska naqadaan suuqa degmada Walaweyn oo deegaanka Walaweyn oo dhan suuqa hal suuq waay suuq kale ma jiro deegaanka Walaweyn suuq hal suuq waay deegaanka dhan iska raacsan wiilashoon iska raacsanaada jiray insha Allah suuqaas aan wada dhisanya suuqaas ka wada ganacsadaan ciidamadan ma ku codsadaan waxyaabaha hadda uu ku hadlayno in ay daba rogaan annaga halkaan aan ka cadaynaynaa in aan ahayn nabadiid waxaan diyaar u nahay walaalahay oo beelaha oo degmada Walaweyn oo xurgufta ay ka dhaxmartay in heshiis oo waara la helo ayaan diyaar u nahay ragogoshiis waa nabad ka bila aadanka hadduu nabad haysto dhagaxaasna waa ku seexan karaa col waa lix lama waa ku talisaay lama waa ka tiirtaay lamana waa ku tanaaday col nin xoolo aan qabin iyo nin aan wiil dhalin waa ku taliya nin xoolo leh oo guri leh oo geel leh oo beel leh oo beer leh oo wiil leh waa ka tiira nin wax qaba iyo nin wiil dhali waa ka tiira lamada ku tanaado waxa waaye wadaadka arbaca la baxa talaada la baxa leh hala duul lacagtiis waa la agdhigay ninkii rasaasta geday waa ku tanaaday dhaqanaan diyaar u nahay nabadaan diyaar u nahay xabad joojinta inay ansaxdayaan diyaar u nahay nabadaan walaalahayn oo soo hor fadhiisan inaan ka dhabaynaan diyaar u nahay kama hor imaasin haddii beesha gaaljecel aan nahay nabadgelyada xabad joojinta si u qaadanayaan nabadan aan u qaadan waxaana soo dhaweynaa nabadgelyada walaalkay nabadoonka oo ku dhawaaqay aad iyo aad aan soo dhaweynaa xabad joojintii aan qaadanay lambarka lamaad nabadgelyada aan qaadanay cabdiqani maxamed xasan warbaahinta koonfur galbeed Walaweyn.